dareen muuqdayo muxubiga gacalku xusnaa muweyn waa maalintii tirka loo muday magacii galmudug uu soo murbaxay maanto kalan dareen muuqdayo muxubiga gacalku xusnaa muweyn waa maalintii tirka loo muday magacii galmudug uu soo murbaxay maalintii galmudug ayay maanta tahay mulaqooday waan miirkacee madaxaa ifuran madaxaa mulaqooday waan miirkacee madaxaa ifuran maalintii galmudug ayay maanta tahay madaxaa mulaqooday waan miirkacee madaxaa ifuran isma ogi markani isma ogi meelaan marayaba ama ogi fahankiya qalbigu markan waa galmudug maqsad baana madaxaa nafuran annaga madaxaa nafuran isma ogi meelaan marayaba ma ogi fahankiya qalbigu markan waa galmudug maqsad baana madaxaa nafuran annaga madaxaa nafuran lama kala maqnee taariikh meel ku qoran weeye maanta maanshii dareen matalaadka weeye ayaa iigu mudan maantoo kalena madaxaa nafuran annaga madaxaa nafuran madaxaa ifuran madaxaa mulaqooday waan miirkacee madaxaa ifuran isma ogi markani isma ogi meelaan marayaba ma ogi fahankiya qalbigu markan waa galmudug maqsad baana madaxaa nafuran annaga madaxaa nafuran isma ogi markani isma ogi meelaan marayaba ma ogi fahankiya qalbigu markan waa galmudug maqsad baana madaxaa nafuran annaga madaxaa nafuran lama kala maqnee taariikh meel ku qoran weeye maanta maanshii dareen matalaadka weeye ayaa iigu mudan maantoo kalena madaxaa nafuran annaga madaxaa nafuran lama kala maqnee taariikh meel ku qoran weeye maanta maanshii dareen matalaadka weeye ayaa iigu mudan maantoo kalena madaxaa nafuran annaga madaxaa nafuran dad maqaamla iyo magac waa maalintoodii dadan maganahayn hortii aan ahayn oon doqon matali waa maalintoodii markan waa galmudugteeno madaxaa nafuran dad maqaamla iyo magac waa maalintoodii dadan maganahayn hortii aan ahayn oon doqon matali waa maalintoodii markan waa galmudugteeno madaxaa nafuran maantoo kalan dareen muuqdayo muxubiga gacalku xusnaa muweyn
ومالنتي يركلو مدي مقعي قلمدك وسمر بحي maanto kalan dareen muuqda iyo wuxuu biyo kalgacal ku xusnaa mugay waa maalintii dirka loo muday magacii galmud uu soo murbaxay بليبا nabad daawadayaal meel kasta oo dunida dacaladeeda ka joogtaan iyo si kasta oo noo daawanaysaanba halkani waa eelaboorka caalamiga ah armaha magaciisa waaye haddaba wayaan soo dhawaynaynaa laba hobol oo aan kala dhicin oo dhinacaas iyo Soomaaliya nooga imaanaya waxayna kala yihiin Sakariya Kobciye iyo Xamdi Bilan waxaana soo dhawaynaya dadka aadka u quruxda badan oo rag iyo dumarba isugu jiro fankooda aad u taageera haddaba ayaga laftigooda ayaan la dhaxmari doonaa makrofonka sida uu soo dhaweynayaan iyo showgu markuu dhici doono halkan waxa isugu yimid waa saxaafadii oo ayagana soo dhaweynaya waxa ii muuqda kuwa badan oo kala duwan waa Taaliil Studio waa Aflanta waa Lil Bali ninka la oran jiray Linga Badon Badi daasaa idibtee Abukar Baasna oo waliba maanta darawal culus ahaa ayaan asna kamida waxa kale oo kamida Jigjiga TV ayaa kamida waxa soo dhaweynaya hobaladii waaweynaa ama hobalkii weynaa ee Maxamed Biibshe waxa halka kale ka muuqata gareeta ka muuqata mir iyo maxay ahayd cod iyo miro ayagana halkaas haddaba waa intaan la dhaxmarin bal aan hobalka weyn meel dayax jooga leeyahay xidiga wax kama iftiinshaane aan ku bilaabo hobalka sida ayida aniga abwaan aad baad u mahadsan tahay waan ku dhawo mikrofoonka mar kale waxaan soo dhaweynaynaa aan u taaganahay airportka Jomo Kenyatta fanaaniin marka nagu qaali ah Xamdi Bilan Sakariya Kobciye iyo Shaafici Qarandoon oo dabcan barnaamijkooda marka halkan kule Nairobi show dhici doona taariikh 15 January madaxana furan baa barnaamijka la yiraahdaa sidii la ii sheegay hada ummadda dhan Nairobi madaxa furan marka waa soo dhaweynaa aan ku faraxsanaynaa qorraxda u taaganahay wali ayaga sugeynaa haddii yimaadaan kule kaamirada ka soo muuqan doonaan waxaan kaamirada ku rajinaa mikrofoonka عود يا ميرا هيا عود ميرا السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحان مانتا هلكان ugu sugannahay amba u taaganahay qoraxda walaalahay fanaaniinta qaranka siiba qaranka waa sii kala yahay galmudug waxaan leeyahay walaalahay soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada maadsantiin wayahay hawla Soomaaliyeed weeye maamulkana waa la sii xusay aad bay maadsantiin inanta yar balaayada abureeqo waxaa soo dhaweynaynaa walaasheeni walaalkeena maanta qoraxdana sida weynta iskugu soo baxnay ka tirtooda u taaganaan waxaan leenahay markoodii mar labaad ku soo dhawaada waa inoo ii showga habeenkii insha Allah waayahay insha Allah hadii Allah idmo dhinacana u sii ruqaansanayna haye halkan maanta waxa u joognaa soo dhaweynta walaalkeena Sakariya iyo abaayadeena Xamdi waxaan leenahay welcome to Nairobi xawaaye hadaa reer galmudug nahay fanaaniinteena madaxayna saaran yihiin fanaaniin qaran waaye fanaaniin qaran waxayna ka siiyeen fanaaniin galmudug waxaan idin leenahay welcome to Nairobi waayahay xogaa codkana kor aan u yara qaadano waa maadsantiin yaad soo dhaweynaysaa hunno walaalkii qaaliya Sakariya Kobciye iyo Xamdi Bilan waxaan leeyahay ku soo dhawo dalka Kenya aad iyo aad halka wali sheekada kala socotaan fanaaniintii baan soo gaaray waa hoballadii qarniga ama qaranka baan iraadee dhinacaas iyo Soomaaliya nooga yimaadeen magaalada madaxdiima maanta ka soo duuleen waan soo dhaweynaynaa ayaga laftigooda waxaan siinaynaa marka mirmir hadal aan siinaynaa waxaan ku bilaabayaa hobalka weyn oo halkan ku soo dhaweeyay malaha waxaan isiri Muqdisho si fiican ugu soo dhaweeyeen si uu soo orday baan u jeedaa xasan aye aad iyo aad talaaban tahay waad mahadsan tahay walaal Muqdisho waxa weeye meeshii koobaad ee Soomaalinimada ay bartay marka cid kasta ka timaada si xamaasad leh baan u soo dhaweeyaa aad baan u salaamayaa bulshada reer Nairobi oo dhan iyo dhammaan Soomaali meel kasta ay joogaan ay naga daawanayaan waxaan halkan u joognaa inaan soo dhaweyno walaalkeen Sakariya Kobciye iyo Xamdi Bilan oo madaxa inoo furi doona reer Nairobi waa habeenkee waa taariikhdee faafahinta waxa inoo sheegi doona Cabdi Mursal mursal ba sheegi doona mursal nin kaamirada hor isaga kuma ogeyn soo dhawo Kobciye walaal waa dhawey horta haddii aan israado soo koobama shucuurtaydii iyo wixii qalbigayga ku jira horta afkumaba soo koobi karayo inaan intaan boodhana aan ku soo qoro dheer oo ilaa 1 kilomitir inaan ku soo faahfaahiyo mooyaane sida xasan uu sheegana Soomaalinimadaba reer Nairobi loogu yimaadaa hadii Soomaalinimada hadii jirto Soomaalida kale waxba ka dhindhimane laakiin Soomaalinimada xalaashiiba
iyo haddii ay wax walbo qama qiimo kula ama astaan way u dad u lahaayo wanaagsan ba iyaga loogu yimaadaa dee ummadeena qiimaha badanna aad mahadsanidin baad leedahay waayahay xamdi bilan oo gabadha waxaan islaa ugu dheer laakiin waa gabadha ugu sii dheer haye shacabka waa siinaysaan markay hadlaanba ku caawiyo dee insha allah waa salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel bay joogaan waxaan ku faraxsanahay inaan imaado Nairobi waliba markii kugu horeysay baa xamday markii iigu horeysay imaado waa Nairobi fayd meel fiiris anoo meelaha diyaaradda xataa dadka ugu dambeeyay qofka ugu dambeeyay aan kasoo degto laakiin qalbiyan baad u joogaysaa waayahay waa lagu sii marka ma sha Allah asxaabta ee soo dhaweysay waxaan ugu mahad celinayaa qofkii maanta ku soo baxay airport ku taagnaa waa dareemi kartaa abaal idinkaga heynaa waa idin mahad celinaa idin madheen laakiin abaal idinkaga heynaa anagana insha Allah waa ku faraxsanaynaa imaano hadda waxa leeyahay lama kala maqnee taariikh meel ku qoran weeye maanta maashe dareen matalaadka weyn ayaa iigu mudan waayahay shaafi waan siinayaa waana soo laabanaya waxaan u soo laaban doonaa biibshi aad baan idin salaamayaa saaxiibayaal waxaan leeyahay saaxiibayaal waa mahadsantihiin sida sharafta leh noo sugteen annaguna cabaar baan hawada ku soo sugnay waxaan dhaheen waa idin dharriin waxaan leeyahay aan degdeg ugu gaarno aad oo mahadsantihiin kaliya laba idin salaamaya waxaan ku soo dhaweynayaa saaxiibkay biibshe waayahay biibshe wuxuu noo sheegi doonaa xilliga taariikhda meeshay tahay waxoo dhan biibshe soo dhawow waa fanaanka asna aad u jeedaa waa maasan tahay sida caadigaaba showga madaxaana furan waxa ka dhacaya sarkaasi dhoom taariikh 15 January ayuu dhici doonaa insha Allah hadee reer Nairobi barnaamijka way sugaayeen raggii waa yimaadeen waa keenna ayagoo runa baas ayadoo booreed ayagoo runa keenay marka kulli fanaaniin qaalina waa joogaan oo xasan kamid yahay kamid ahay iyo fanaaniinta kale oo qiimo badan iqra arkaya oo from Muqdisho ah Buraaqo waa la imaan doona fanaanka maqnaan doona Nairobi oo yaraan doona insha Allah barnaamijkaas fanaaniin badan oo xataa af xidhan baa ku jira halka oo dhudhuumanaya jira marka welcome ale soo dhawaada iqra isi waya iqra inda deeq baa joogta gabadhii masraxiyada looga kala haray abwaanada waa u dambaysiisanaya waliba Eurobeelana way joogtaa meel fog uga soo oraday Xalima Kismaayo waa joogtaa aniguna waa jooga walaalo hadalka iskuma fiicninne hay masraxa isku fiicannee walaalo waxaan leeyahay deeran iga soo horeeyay soo dhawaade waayahay hadalka dan ubax baa la guddoonsiinayaa khatra baad waxay tiri ana my best friend aye waqti dheer bay noo soo way noo joogi doonaan hal mooto leewaaya markaad magaalada faantid libaaxyo badan ay ugu leedahay mar geema ciyaartay TikTok waa ka sheekaysanaysaa way noo caawo isballasada aye aw abwaanadi fartuun kareeto way soo gabagabeynaysaa iyadoo abwaanadayda warmaanta madaxa ee furahan oo mamadaka warmaanta madaxa furahan oo mamadaka aniga madaxdaydiba meesha igu tiin maqamka iyo quruxda ayan dhaxmaraya aniga meesha tagaan waa ka muuqatay wale fanaan inta mudan uma asaya oynay ku maqsuudi doonaan maleynaya daraja dheer qadara beedusheenadi dadkeygina waatiin doodna waa bilaa odeeqda rabbiga khayraga haray duntiinata dadni malaha yasreerani man kan ko deersanje abooweega iyo kobciyaga way waadubaya waliba xamdi bilana ma anteeda kama dibdho Allah ideysta fanaanin tantolada aamin aamin dadan ku faanahatiin dadogo jecla dadan ku faanahatiin dadogo jecla oo dirkayga ka yeelay rabbigayga daayinka
daraja iyo sharafna ya hagan dushooda markale isoo dhawaadaanu leenahay soo dhawaada walaalay soo dhawaada isma gaarin xaflado waaweyn iyo barnaamij way ayana halmaamin kooxda Tawakkal ayaa ayana cagta iyo waliba dhaanta qurux badan ku soo dhaweeyay suugaanta ku jirtay walaalaad wax nooga siisay abwaanada waxaan leenahay waa ninka kaliya oo is dhageystay asagoo la amaanay dhaxan is dhageystay waxaan leeyahay inaan annaguna Nairobi annaga abwaanadaan u haysan ka tagi mayno mahadsan thank you walaalkay wayahay wax yar baan markaas waa kala babanaynayna sama